السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeenimo wanaagsan idil ahaantiiba meel kastoo caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada war waxaan caalamka idinka haynay youtube-keenan channel badiya bari wararka ugu dooran caawa waxaan idinka haynaa America, Europe iyo Africa iyo Asia. haddaan idinku horeeyo wararka caalamka suuqa caalamiga ah ayaa saameyn ku timid waxaana hoos u dhacay lacagta Yurub ee Yurada. dhanka kale dowladda Trump ayaa joojisay ama la wareegtay xaaladda ilaalinta shakhsiyaadka Soomaaliyeed ee ku nool USA TBS taasoo qasbaysa dad Soomaali ah inay ka tagaan dalka haddii aan sharci cusub la helin. sidoo kale wararka Yurub waxaa jira qorshe EU ah oo lagu diyaarinayo cashuur celin gaaraysa 93 bilyan haddii Mareykanku sii wado tallaabooyinkiisa. sidoo kale wararka naga soo gaadhaya Somaliland sidee sheegayaan wararka hadda soo gaadhaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa safar ku tegay magaalada Tel Aviv ee cariga Israa'iil wuxuuna la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar iyo wasiirka difaaca Yom Pate. sida ay sheegtay wararka noocaas ah ayaa jira laakiin weli lama xaqiijin shirarka rasmiga ah ee la filayo in la qabto. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay hakisay dhammaan gargaarkii iyo caawintii ay siin jirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay in mas'uuliyiinta Soomaaliya ay burburiyeen bakhaar ay ku jireen 76 tan oo cunto gargaar ah oo loogu talagalay dadka danyarta ah. sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta ayaa gabi ahaanba joojisay mushahar ay siin jirtay 3800 oo askari oo ay gacanta ku hayeen kuwaasoo sugi jiray amniga Muqdisho. maanta 17 Janaayo ciidamada ayaan weli helin mushahar waxaana ilaa hadda la qariyay saraakiisha in mushaharkoodii uu goosto Imaaraadku. ila wareed ku dhow safaaradda Imaaraadka ayaa noo sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu hakisay mushaharkii ciidanka oo ku jiraan ciidanka booliska militariga ee amniga Muqdisho gacanta ku haya. mas'uul ku dhow hay'adda amniga ayaa noo xaqiijiyay in lacag dhan 5 milyan bil kasta Imaaraadka Carabtu ku bixin jireen ciidamada taasoo loo adeegsan jiray mushaharada gaadiidka, shidaalka, caafimaadka, raashinka iyo dayactirka qalabka. ciidamada ay Imaaraadku gacanta ku hayay waxaa ku jira ciidan ku sugan duleedyada Muqdisho sida Sabiid iyo Caanoole, wadada Afgooye, ceelasha biyaha iyo dhanka wadada Balcad. arrintan ayaa saameyn aan laga soo koobsan karin ku ah amniga Muqdisho. sidoo kale Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe oo kala wareegtay gacan ku hayntii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo deegaanada halkaasi. weerarkan oo dhacay waa berigii hore ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac waxaana la xaqiijiyay in hub iyo gaadiid ciidamada Soomaaliya ay gacanta u galeen Al-Shabaab. ciidamada Soomaaliya ayaa la sheegay in ay dib uga soo gurteen goobta iyadoo xaaladdu weli kacsan tahay oo weli sidii tahay. sidoo kale wararka naga soo gaaraya Djibouti waxaa jira isku dhacyo hubaysan oo ka dhacay qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan agagaarka xadka Itoobiya. dagaalka wuxuu u dhexeeyaa ciidamada dowladda Djibouti iyo kooxda mucaaradka ah Baruud. waxaa la soo sheegay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dowladda Djibouti ayaa joojisay internetkii si ay u xakamayso xaaladda amni. ciidamada dowladda ayaa isticmaalay diyaarado daroon ah si ay u bartilmaameedsadaan kooxaha. sidoo kale xiisaddu waxay la xidhiidhaa khilaaf siyaasadeed iyo qowmiyadeed gaar ahaan bulshada Canfarta. inkastoo Djibouti hore u ahayd dal degan
haddana ilaa hadda waxaa muuqda amni darro gudaha ah. ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan ciidanka waddanka Jabuuti ayaa geeriyooday kadib markii fadhiisin ay lahaayeen ay weerar ku soo qaadeen jabhaddu cafarta ee mucaaradka ah. sidoo kale wararku waxay sheegayaan in askar lagu dhaawacay weerarka oo ay dhaawaceen jabhaddu. sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ay askar kale oo nool ka afduubteen goobta ahayd iyada xerada militariga Jabuuti. wixii warar intaas ka soo kordha waa la soo socodsiinaynaa. xaaladdu aad bay u kacsantay caawa Jabuuti. sidoo kale marka laga yimaado weerarada maanta dhacay ee canfarta ku soo qaaday Jabuuti, waxaa jira shacabkii Jabuuti baa laba qaybood oo kala jabay. Soomaalidii iyo canfartii baa weerar ka dhex socdaa. qaybta canfartu waxay leedahay Ismaaciilow na dhaaf, ciisuuna way dagaalamayaan waxay leeyihiin Ismaaciila joogo. wallahi zaawada kuwane مدركز مقالة جمهورية حكا دعا بسم الله دقال عنفرية صومالي بأسكشي والله بلا إله ومدى صومالي دي دقال أقلدا اللقوين وحكا دعا عنفر بقلتو دركسا sidoo kale Puntland waxay maanta soo bandhigtay ajaanib fara badan oo ka qabto Sacuudi iyo Turki ay ku jiraan oo Turka waxay ka dalbatay dadkii ay laayeen inay bixiyaan magtoodii. Ethiopia baa ku jira, wadamo badan baa ku jira oo kale. sidoo kale Puntland maanta ciidankii ugu badnaa bay keentay xadka ay leedahay gobolka Sool, waana soo xidhay xuduud oo dhan. bal yar daawada waa ka falanqeynaysa xibkeena. dowladda Puntland waxay ciidamadii ugu badnaa geysay magaalada Garowe. 3,000 oo askari oo ka soo degay buuraha Almiskaad ayaa dowladda Puntland geysay xarunta 54 ee magaalada Garowe. ciidankan ayaa la filayaa inay dhawaan soo xidhi doonaan xuduudaha Puntland, sidoo kale ay tallaabo ka qaadi doonaan qof kasta oo ku xadgudbay sharciga kala dambeynta iyo nidaamka Puntland, sida ay 2 maalin ka hor sheegtay dowladda Puntland. warar hoose oo aan helay waxay sheegayaan in Jimcaale iyo ciidankiisu ay cafis ka dalbadeen dowladda Puntland, laakiin arrintan ayaa u eg in cafiskan uusan macquul ahayn hadda, maadaama madaxweynaha Puntland Siciid Dani 2024 uu cafis u fidayay ciidanka Jimcaale iyo saraakiishii hore ee khaladka ka gashay dowladda Puntland. daawadayaal war waxaan caawidin hayna waa naga intaa tan iyo inta dib u kulmayno habeen wanaagsan. subscribe, like, share please. kor u qaada baryahan baalka hoos buu dhacay. bye.